بسم الله guys cabitaan kastoo sameeyo mise cunto kastoo sameeyo waxa ku jiro wax yaro secret ah oo islihiisa dhowdin waxaan soo easy waxaan risk ahaa laakiin kooda hore aan ogeyn so stay tuned hadii aad xiiseynaysid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر بعد جنال كيكا أنا بيت عيسى by the way كان معركتي وهان كريم وشيا إيو أن سافران وكسميسين يهي عرفتي سا مركا مرستيد قفك أجمل تحكولها محكا سو عرفوي عرفي رودي كان لايك كعمها نحكا ديقايا أنا كعمهيقا شاقada maanta dhan maaragto waxa ku dhaqaa antipaaka ku dhaqaa soo maxaa dhahay gacmiga qaleel waaye marka dadka kareemada aad ugu fiican ma ihsan in sheego wiil xogo iska hayno saa ku soo aragteen hordhac fiidiyoga maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo wax waxaa jira mataqaanaa aan gurigaaga ma ka helaysid is raqiis maxaa dhahay aad jeceshahay like oo haddana waxaa jirto ka faa'iideysan inta badan so cabitaanka amaanta sameynayo wuxuu ka kooban yahay mise aan rabaa fruitkan inaan ka hadlo tufaax gaduudan waaye laakiin secretka maaragtay cabitaanada aan sameeyo markasta waxaa ku daraa saa idin soo sheego so secretkaas muxuu yahay maxaa ku jira cabitaankaas muxuuna faa'iido u leeyahay maxaana u isticmaalayaa tufaaxa maxaa ku dari doonaa haddaa rabtid isaa u sameynaa dhadhankiisa everything haddaa rabtid xiiseynaysid nala joog ilaa maxaa la dhahaye فيديوغا لما تكيسة فستيتون أذن هاي guys هرتا تفاحة جديد تسا أكنا هاي وحاوي نوتريانت في عنا كجرو مثلا نفقة في عنا كجرتو وحو يهي هاي أنتوكسيدنت واي وفروت كان هاي أنتوكسيدنت وحيابها وجعلها واي مركا ولي بدي توكسيفيشن سمينا يجرك النظيف فينايو detoxification كلي معها ولي overall health يعني وفي عينها دمان so waxyaabaha faa'iidadiisa marka tufaaxa maaragtay high calorie ma aha maxaa lahayaa fat ma laha kaliya maaragtay high in sugar aan dhihi karnaa sonkorta xoogoo yariisa ku badan maxaa dhaca sonkortaas ku badanna intay ka imaanaysaa waa sonkorta oo naturalka ah oo ka imaato dhirta oo ilaahay u abuuray so aniga ma hadlooyi قف diabetic قف سدان كان كلا قف حنون هيست قف allergic وأكم هادلو general أو هادلو يادتك ماركت عادي عافمات قبو أو ربان إن جيركو ذا نظيفيان أو ربان ماركت إن محل ده هاي علوشو ذا قاتل تقول ذا كفي جيران يوح نفق العنان ما دام ضد بدون كل بتاعي إن عنان ماركت فروت كمحلها خضار توحس أنا أنت بدن عبيتان يسوب أنا كسمة أجعل هاي wax easy ah oo qofkina uu isticmaali karo oo ka faa'iideysan karo jirkiisa uga faa'iideynaa waa maxaa dhacdartan cabitaanka aan sameeyno daarabti iskiin qurux badan daarabti maaragtay ina waliba samra la galaya gabdhi caaw dalaalka iyo quruxda jeclaayay samarka maaragtay quruxda markay soo baxdo dadka dhan horta ma sha Allah way qurux badan yihiin qurux badnaysiiso so hadii aad rabtid waa high vitamin C waxa la dhahay wuxuu ku dhalaalnaa iskiinkaaga inta ugu badane waxa lacagteen ku baxdan waxa waaye protectiska oo jirkeena maaragtay aan dhahayn skincare so skincare mar walba wuxuu ka bilowdaa gudaha calooshaada marka nadiifisid maaragtay marka wax nafaqo la cuntid wixii jirkaaga u baahnaa marka heshid skincare-gana gudaha ka soo nadiifis maahino yeah so mid kale faa'iidada labaad uu leeyahay waxa waaye high fiber fiber ka horta waa nooc kamid ah saxda maaragtay waa carbs maadaama uu maxaa dhahay high fiber yahay muxuu fiican yahay bowel movementkaaga calooshaada digestive systemkaaga dhaqaaqeeda like musqul inaad gashid everything iyo sonkorta maaragtay inay jirka maaragtay degdeg u gelin inkastoo high sugar dhinacna ka yahay dhinacna maxaa dhahay waxa waaye fiber badan ku jiro so dhinacaas positive waaye fiberka ugu fiican intay ka helaysaa skinkiisa so horta aan waxaan dhihi lahaa caado jarta oo cuna hadaa woodid hadaa shiidanaysidna maaragtay ka miirin cabitaanka ka miirin qolofka so ku cab hadaa wax kale laakiin ku dartid ma ogi ya midda saddexaad waxa waaye uu ku fiican yahay biyo badan u leeyahay so jirkeena muxuu baahan yahay waliba skinkaaga
hydration inaad qoysid nafaqa siisid biyo oo helo soo quruxaa noqonaysaa wrinkles-ku kaa ilaalinaya like faa'iidadiis kala waay wuxuu support gareeyaa maxaa la dhahaa nadiifinta keliyaha iyo beerka detox markaa sameynayana keliyaha iyo beerka waa waxyaabaha ugu muhiimsan in la nadiifiyo calooshaadaba so marka guys wax kale ku fiican inta u gudbin waxaa sameyn doonaa saas kugu dadaraayo la socda codkana korkaa ka saaraya so gadaal videogan waxaan kuu sheegi doonaa waxa secretka ah oo ku jiro oo maxaa la dhahayay cabitaankaas iyo faa'iidadiisa so stay tuned guys cabitaanka kama koobnaan doono keliya tufaax cabitaankan waxyaabo badan ku jiro soo ujeedin 2 xabo tufaaxa meesha ii saaran waxaa kale oo saaran liin dhanaan waxaa saaran maxaa la dhahay sanjabiil waxaa saaran ananas iyo cinnamon mise qorfaha shiidan af Soomaali qorfa bisa u aqaana ma ogaatay dadka kala direct duwaniina deed si kala u taqaanay cinnamon waa English soo hadeertan intaan soo jajaranaya kadibna kulli marka isku soo wada daro la socda guys ananaaska marka freshka yaa ani waa jeclaa laakiin dibka jiro mataqaana shaqo badan oo raba hadda dhaxda inaa ka saaro inuu hilibkiisa dhaxda ku jiro waayeen waxaas dhan isku dayoyaa guys biyaha ma aragtaa dartaan tufaax biyo wata ananas biyo wata waxa meesha ku daro biyo heestan ayaga xataa soo biyo badan aad badan ku shubin 2 koob ku shubay hadda waxa ku darooyaa huruud oo ma haysan oo fresh ka ah soo qaadada yariista wax yar ku daraa colorka in aad iga bedeshan waa diidooyaa huruud fresh kan waa jeclaa marka huruud ku daraayo soo waa isku soo shiidaya soo la socdo waa miiraya wax kale waxa uu miirnooy maaragtay shaandadaas oo weynta ah waxa waaye ina waayin qolofka iyo nafaqada iyo fiberka maaragtay ina waayina rabaa guys waxyaabaha ugu jeclahay ina sameeyo cabitaanada waxyaabaha ah oo qudaarta ashiida iyo maaragtay fruitka ashiida cabitaanada oo ka sameeyo waxa kamid ah in qofka ay ku adag tahay inuu maanta fruit intuu jirkiisa u baahnaa oo cuno iyo maxaa la qudaartaba laakiin waxa easy kaaga dhigaysaa marka cabitaanada shiidati ina cabtid waliba maaragtay dadka oo abiteedkooda xun yahay dadka waaweyn dadka waayeelka waadan kula talin lahaa cabitaano u sameeyo inta badan qudaarta iyo fruitka iyo shiida cabitaanka deertan waa ii diyaar dhalooyinka ku shushubi doonaa dhalooyinkaas yariiska waxa ka helaysaa karteemo waa ka helaysaa shin waa ka helaysaa netka waa ka helaysaa glass ulsanka aniga gatay Norway hada joogtid dhalooyinkaas yariiska oo kale inta u baahan tahay gurigiin intuu family ka kooban yahay soo gado
u sameys space aan gasho fridge-kaaga cabitaanka habeenka marka inta sii samaysatid 3 days oo kale and of 3 days camal anaga u samaysanaa as family ahaan so 3 days samaysana meel iska dhigane aan hadhowdi shaqada aadaysa degdegaysa way ku caawinee guys secret cabitaankan waxa waaye ay idin sheegayay hal wax oo yar oo fariisa waa idin sheegay waxa waaye cinnamon mise qorfa saa u taqaan soo shiidasha mise asagoo caadi ahbo so wuxuu ka caawinayaa in sonkorta maaragtay ee degdeg dhiig u raacin marka secretkaas ka faa'iideysta haddii aad rabtid in maaragtay cabitaanka macaankiisa jirkaaga degdeg u gelin xaggaas waxaa ku jiro cabitaankaas kale asagana waa kasoo hadli doonaa waa soo samayn doonaa dhalada gaduudan mise cabitaan gaduudan so finally waa ujeedin cabitaanka aada u macaaya aada isku dheelitiran yahay secretkiisana waa idiin sheegay waxaa rajeynaya inaad ku darsatiin maxaa dhaca tufaaxa natural sugar oo haystaa so tan waxay ka caawinaysaa jirka in oo qorfahaas wuxuu ka caawinaya jirka inay sonkortaas degdeg u gelin waa ogtihiin insulin maxaa dhahay la soo deenayaa soo ma fiicno markii maaragtay wax sonkorta ku badan tahay mise sonkorta degdeg dhiig u raacayso aa cuntid mise cabtid so waxaa rajeynaya inaa ka hesheen like noo sanada ka heshay thank you